Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan soo gudbi doonaa barnaamij looga hadlayo taariikhda Soomaalida oo magaciisu yahay taariikhda Soomaalida hore iyo tan hadda. Wuxuu yeelan doonaa qaybo badan oo kala duwan. Maantase waxaan ka hadli doonaa si hordhaca ama qaybtiisa hordhaca. Taariikhda Soomaaliya waxa ay dib ugu noqonaysaa kumanyaal sano. Masaaridii hore waxa ay ku tilmaami jireen dhulkii Ilaahay, waxayna u diri jireen dad badan oo la soo ganacsada, luubaantana ka soo gata Faransiiska. Luubaanta Soomaaliya waxa ay darajada sare kaga jirtay ganacsiga masaarida waqtigii ay u diri jireen kooxaha safra. Weliba waxaa loo malaynayaa inuu soo horeeyay waqtigaas. Roomaanka waxay u kasi jireen geeska Afrika. Sababtana waxay ahayd in halkaa laga soo dhoofin jiray luubaan badan. Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka uu soo maray horyaalkii Carbeed ee dunida ku soo wareegay. Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii uu soo maray horyaalkii Carbeed ee dunida ku soo wareegay Ibn Battuta bartamihii January 1330 ilaa 1328 isagoo doon kaga soo gudbay Cadan ee dalka Yemen. Kadib markuu 4 maalmood badda ku soo jiray ayuu yimid magaalada Saylac. Kadibna wuxuu u sii gudbay Xamar. Wuxuu badda ku jiray 15 maalmood. Ibn Battuta wuxuu tilmaamay Xamar inay tahay magaalo aad u weyn. Vasco da Gama oo hor kacayay hay'adda gumaysiga Boortaqiiska, isagoo markaa ka soo laabtay Hindiya sanadkii 1499 AD, ayaa ku guul daraystay markuu isku dayay inuu Xamar weeraro. 1507 AD ku guuleysan waayay inuu qabto magaalada. Sanadkii 1532 AD, Dom Astafa da Gama, wiilkii Vasco da Gama, wuxuu booqday Xamar si uu u iibsado markab. Bishii Diseembar 5, 1700 AD, markabka dagaalka ee ciidanka Ingiriiska ayaa soo hor istaagay meel u dhow Xamar, isagoo loo maleeyay inuu hadafkiisu ahaa inuu cabsi geliyo magaalada. Hase ahaatee, wax ciidan ah ma dejin magaalo. Maalmo kadibna wuxuu sii aaday Hindiya. Intuu socday dagaaladii dhex maray Boortaqiiska iyo Imaam Cusmaan, Xamar iyo magaalooyinka kale ee xeebaha Soomaaliya waxaa qabsaday ciidanka Imaam Seif B. Sultan. Hase ahaatee, waqti gaaban kadib, imaamka wuxuu ku amray ciidankiisa inuu dib uga laabto dalka Cumaan. Imaam Seif B. Sultan wuxuu dhintay sanadkii 1116 Hijriyada oo la sinayd 1704 AD. Inkastoo aysan jirin wax hubaal ah oo sheegaya in Jarmalka isticmaarsaday dhulalka Soomaaliya, haddana 1855 saraakiil Jarmal ah waxa ay ku andacoodeen in shirkadda Bariga Afrika ee Jarmalka uu la saxiixday heshiis madaxa Majeerteen. Heshiiskaas oo sheegayay in Jarmalka la siiyay dhulalka laga soo bilaabo bariga magaalada Berbera ilaa Ras Cashuurad. Jarmalka waxa kale oo ay ku andacoodeen inay heshiis la galeen xaakimka Hobyo, kaas oo Jarmalka lagu siiyay dhammaan xuduudda dhulalka ee u dhaxaysa Hobyo ilaa Warshiiq. Bartamihii qarnigii 19aad, Suldaanka Sinsibaar Barqash bin Saciid ayaa qabsaday Xamar, wuxuuna u xukumayay nidaam waali ah oo wakiil u ahaa. Sanadkii 1889, Suldaanka Sinsibaar wuxuu magaalada Xamar ka ibaaray dowladda Talyaaniga,
oo sanadka markuu ahaa 1906 iibsatay dhammaan dhulalkii uu haystay suldaanka ee ku yaalay xeebaha Soomaaliya. Talyaaniga wuxuu dalka joogay ilaa markii laga guuleystay ee dagaalkii labaad ee dunida. Isagana waxaa ka qabsaday Ingiriiska lana wareegay maamulka. Dowladda Ingiriiska waxa ay dhaqdhaqaaqeeda ku bilowday booqasho ay ku yimaadeen dad Ingiriis ah magaalada Berbera sanadku markuu ahaa 1825 kadib markii heshiiska Berlin ay dalka reer galbeedka ku qaybsadeen dhexdooda qaaradda Afrika. Sanadkii 1884 Ingiriiska wuxuu heshiis saaxiibtinimo ah la galay kadibna heshiis mustacmar ka saxiixday Soomaalida. Ingiriisku wuxuu joogay dalka Soomaaliya ilaa 1960 markii gobolada waqooyi uu qaatay madax-bannaanidiisa kuna darsamay gobolka Koonfur oo markaa ku jiray wasaaradda qaramada midoobay 10 sano laga soo bilaabo 1950. Dalka Faransa sidoo kale wuxuu haystay dhulka Soomaalida laga soo bilaabo 1862 ilaa dalka Djibouti uu ka qaato gobonimada sanadkii 1977 oo markaa noqday jamhuuriyad iskeed ah oo la magac baxday Jamhuuriyadda Djibouti. Soomaaliya waa dalka kali ah ee qaaradda Afrika oo ay gumeysteen dalal reer galbeed ah oo kala duwan, loogana qaybiyay gobollo kala duwan kadibna u sii gudbiyeen dalal kale. Waxaa ka dambeeyay boobkii qaaradda Afrika iyo xitaa kadib markii ay Jamhuuriyadda Soomaaliya dhalatay 1960. Labada gobol ee ay ku dhisan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay kala yihiin labadii dhul oo ay kala haysan jireen Talyaaniga iyo Ingiriiska. Gobolka Koonfur waxaa la geliyay wisaayada qaramada midoobay 1950 ilaa xornimada. Labada gobol waxay gobonimadooda qaateen sanadkii 1960 bishii Juun 26 waxaana xornimada qaatay gobolka Waqooyi Juulaay 1. Waxaa xoroobay gobolka Koonfur isla markaasna labada gobol dib u midoobeen 9 sano ka bacdi xukunkii rayidka ahaa. Waxaa soo bilowday 1960 waxaa lagu afgambiyay kacaan aan wax dhiig ah ku daadan oo waliba caleemo cagaaran ah lagu soo dhaweeyay. Xukunka kacaanka oo ay hogaaminayeen saraakiil ciidanka qalabka sida ah oo madaxa u ahaa Maxamed Siyaad Barre muddo 20 sano ah ka badan markuu kursiga ku fadhiyay ayaa isagiina kacaan dhiig badan ku baxay lagu afgambiyay sanadkii 1991. Afgambigii lagu riday dowladdii la yaqiinay markay xoog lahayd kacaanka barakaysan. Waxaa ka qayb galay ururo fara badan oo kala duwan oo ka soo horjeeday dowladda militariga. Waxaase ku socon baxay inay horseed u ahaayeen dhanka koonfurta USC dhanka waqooyiga. Aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal. Fadlan kanaalka ku soo biira si aan u soo gudbino waxyaabo badan oo idin xiiso geliya.